wiilkii aan gabadha u doonaynay soo noqdo mataqaanaa hawadu ka baxno waa soo xabiilka waa yaabay waa kaca uu fariistaa waa kaca waa fariistaa waa kaca ilaa uu hawadu ka baxo wiilkii marka dambe hawadu ka baxay maxaa dhahdaan aanay anaga alaabteen waa soo diyaarsanay gabadhiyaa soo doonay waxaan u diyaaraynay gabadhii ku isjecel yihiin xataa way imaadeen habeenkii ugu dambeysay way sheekaysteen maalin hebel la soo doonay dhaheen ka warnaan ileen hooye kuma bogsiiso hamigu warwarka ma bi'iyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. kulan wacan oo wanaagsan asxaabta aan jeclahay oo mar kale muuqaal cusub iyo saaxiibkiini Ustaad Onkod meel kasta oo joogtaan asxaabta iyo bahda ku xiran waa idin salaam kadib meeshii aan ku yaabay ayaan fadhiyaa maqashaan hadda koor dada waxay dhaheen meeshii aan ku yaabay ayaan fadhiyaa meel kasta aad joogtaan subscribe saara like saara share gareey muuqaalka isla markaana si oo dad badan u gaaro sida u jeedaan waxa dhabta ii saaran barkin aad cusub ah dhabta ii saaran hadda la soo gaday barkintan waxa loogu talagalay aroosa loogu talagalay laakiin maxaa dhacay sheekadan waxaan rabaa inaad comment ka soo bixisaan oo ka soo falcelisaan sida xalkeeda loo gaari lahaa saa u jeedaan gabar iyo wiil ayaa sheekaystay sheeko dheer kadib way ballameen waxay ku ballameen guuriga ku ballameen wiilkii gabadhii waxay tiri soo doono wiilkii gabadhii waxay tiri soo doono gabadhii wiilkii uu doontay waxa la yiri waa ku siinay gabadhii inta kadib gabadhii wiilkii waxay wada socdaanba waxay tiri arooskii soo dedeji si aan ciyo u dhigno ay tiri si fiican u dhigay sheekada waayo yiri wiilkii wuxuu bilaabay durba in markaasi uu alaabtiisii soo diyaarsado si uu arooskii u galo markaasi oo u noqdo markaasi qof caruus ah oo helay lamaaniisi uu jeclaa balse gabadha iyada taa kuma jirin oo qof kale ay la socotay ama lamaano kale ay gabadha la socotay oo saaxiib la ahayd wiilkii maxaa ku dhacay marka meeshii daruuro laga filayo waxa ka imaatay ceeraan maqli jirteen meeshii laga sugay iftiin waxa ka soo baxay gudco gabadhii wiilkii uu isdiyaariyay wuxuu sameeyay in maalinba uu xoogaa alaab soo gato maalinba xoogaa uu soo gato maalinba xoogaa uu soo gato ayuu sameeyay wiilkii markii alaabta dhameystirmeen oo wuxuu yiri diyaar ahay xataa guri uu soo kireystay wuxuu yiri diyaar ahay hay arooskii aan dhigna markaasi hawsha la googooyay waayo wuxuu ku tashanaa mar walba tabartiisii si wixiisa uu soo dhameystirmo si wixiisa markaas uu soo dhameystiro alaabtiisii iyo dhamaan iyo guriga wuxuu dhigi lahaa iyo wixii gabadha isticmaalad wuxuu isaga isticmaali lahaa حتى شوبينكي راشين كل وسود دياري wuxuu yiraahday diyaar ah arooska aan dhigano waa tahay hay dhahay imo oo tagay habeen soo sheekaystaan wala soo wadashay xaafadii waxay tiri maalin hebel arooska ka dhiganay maalin hebel waxa keenta odayaashii ka socday adeere iyo aabi awoobi keen ay dhahay okay marka ani waxaan kamid ahaa teamkii la socday ayaan kamid ahaa markaasi oo tagay oo gabadhii wax ka doonay marka aan guriga galnay waxaan la kulanay sheeko yaab leh waa sheeko iga yaabisay sheekadan waxaan rabaa commentiga inay xalkeeda raadisaan yaa qiyaanoolaha ma gabadha mise wiilka labadooda yaa la qiyaanay yaa se wax qiyaanay yaa markaas jaceelka dhabtiisa uu haaya waxaan rabaa inaan commentiga wax ka soo saartaan waxaa dhacday marka guriga markaan tagnay guriga xoogaa waxbaa ka jirjiray waa la soo dhaweeyay waa galnay waa fariisanay dad labisano hadda gawaari wata ahayn guriga markaan galnaan fariisanay waxbaa meesha ku cunay cuntaan loo keenay adiga waxaa loo keenay markaas bariis iyo hilib iyo ayaa loo keenay daanga iyo timir iyo xalwo iyo waxbaa loo keenay macmacaan waxaan isleeyahay marka dadkan dad aad fiican soo dhaweeyay laakiin marka fiiriso arinta soo dhaweyn ka weyn oo guriga dad badan ayaa jooga zaxmad ayaa ka muuqata marka kadib waxaan u yeernay odaygii guriga lahaa ee gabadha dhalay ayaan u yeernay oo noo yimid kadib oo nala fariistay hay waran fiicantii qaar hay markaas weerar si fiican ma lidin soo dhaweeyay ma lidin marsoor mise galbaatiin maya waan soo dhaweey aad loo marsoor ma sha Allah si fiican wax cunay hadda waxaan rabnaa hawsha inaan galno aan dhameeyno maxaan galeynaa aan dhameynana oo dhawday ina had koor ku imaanay oo gabadhii ka soo doonanay oo markaasi aan arooskii wixii aan soo diyaar garoolso isku ogeyn wallahi wuxuu yiri shalay gabadha ayada idin keentay haddana ayada idin diido yiri waxa maanta aan cunayseen wuxuu ahaa gabadhii arooskeeda ayuu ahaa gabadha wiil kale ay kaansatay gabadheedana qofka ay kaansato ayaa qof u ah iyada jeceshahay gabadhii wiil kale ay kaansatay waa kala dhamaanay dad caadi oo aroos ka soo qayb galay ay idin maleyneen waayo anaga dad waxaan aad u labisan oo gawaari wato oo markaas oo ogtaada Soomaalida qofka markuu xogaa kala kacsan dhisan yahay gawaari uu wato meel ma laga celi mugta waxaan noo maleeyahay marka dad qaraabada oo labada dhinac
dhinac ka socda loo maleynaa arooska saas u socda loo maleynaa arinta marka loo sheegay aniga waa xanaaqay fajceena la noqotay wiilkii aan gabadha u dooneynay soo noqdo mataqaanaa hawadu ka baxno waa soo xabiilka waa yaabay waa kaca uu fariista waa kaca ilaa uu hawadu ka baxo wiilkii marka dambe hawadu ka baxay maxaa dhahdaan aanay anaga alaabteena waa soo diyaarsanay gabadhiya soo doonay waxa la diyaarinay gabadhii ku isjecel yihiin hatta way imaadeen habeenkii ugu dambeysay way sheekaysteen maan hebel la soo doonay dhaheen ka warnaan markaas waa yaab anaga meesha joogna marka waxa markiiba nagu dhacay alalaas nagu dhacay ilaa maxaa yeelay gabadha hore loo mehriyay marka dad waxa jira caadiyan markii ay arooska imaadaan boo dhaqan ah inay alalaasaan maamooyin gabdhaha imaadeen way alalaaseen wax xaqiiqsada marka aan meeshan u aroos ka jirin marka aabi wuxuu yiri waa maasantiin raalin ahaada gabadhaas idin yeesh anaga idin ma yeel ani idin ma yeelin gabadheena markaas qofka ay jeceshahay gabadheeda ayaan ku daraa marka wiilkii saasa ku dhacday alaabtu soo diyaarsaday hadaba waxaan rabaa marka in weli dhacdaas hore mu aragtay hadii aad aragtay maxaa ka tiri bal ina comment ku soo qortaan dhacdaas oo kale qofka ay ku dhacday wiilkaas oo kale hadii wax xataa saas u geeriyo ama uu tago yaa qaldan ma gabadha qiyaantay mise isaga ayaa jaceelka ka tambadiyay waxaan rabaa dhacdaas la yaab kale aan la kulmay asxaabteedii wadin la wadaagay in aad ka soo bixisaan fikirdiina iyo commentigeena sidii markaas wiilkaasi lagu daaweyn lahaa ama lagu soo celin lahaa gabadhana markaas maxay noqon kartaa wiilka way qiyaantay ma isdhihi karaa mise calaf ayaa hiiliya la dhihi karaa maxaa arintaas lagu xalin karaa marka idinka sugaya comment ku soo qora dib inta u kulmi doono waa saaxiibkiina ustaad Onkod idin leh sidaas nabadgeliyo kulan dambe oo xiiso leh halkan waa Miisaan Media Production